muhima iyadana meeshaas marka waa baxtiga saddexaad wuxuu yahay dadka qaar baa waxay ka dhigeen ibnu cabbaas iyo abu mijlas waxaan ay ka hadlayaan oo ay leeyihiin war ma ahan gaalnimada aada idinka ku tegaysaan marka ay sidaa leeyihiin bay waxay u qaateen in xukunkii yani shareecadii oo dhan meel inta layska dhigo meesha iyo maxkamadda waxa yaallaa uu yahay qaanuun kale qaanuun wadci baa maxkamaddii yaallo maba loo laabtaba shareecada islaamka dadka qaar baa laga yaabaa inay yidhaahdaan qaanuunka ay qoreen iyo shareecada hadday meel uun iska waafaqaan soo shareecadii lama xukumin mayo lama xukumin waayo min baabi tawaafuq ay ku timid maahana ilaahay in laga qaato looguma talagelin yani sharci ahaan ma loo soo xiganayo qaanuun ahaana loo soo xiganayo taas dadka in lagu sira maahan marka dadka qaar baa marka waxay leeyihin waxaasaa ku yaallo kan waa ku yaallaan diinta islaamkana waa waafaqe diin islaam ahaan laakiin meesha looma keenin qaanuun ahaanaana loo soo xigtaa ayb marka mas'aladan saddexaad marka waxay noqonaysaa farqi ma u dhaxeeyaa maxkamaddii kitaabka allaa yaallo marmaraa jowr la sameeyaa maye maba yaallaba kitaab alle iyo walaa axkaam yani kutub shareeco maba taallaba oo waxa loo laabto waa wax kale siday noqone midda dambe marka tashriici caamka mas'aladiisii waayo waktigii ibnu cabbaasna waxaas ummadda maba lagu ibtilaynin banaan waxaa ku tusaysa fadwada ibnu cabbaas tashriica caamka inaynan ka warramaynin waagii ibnu cabbaas maba jirinba qawaaniin dadku samaystaanoo wadciyo meel lagu dhigta ma jirin oo maxkamad la dhigo taariikhda islaamka laba maray soo martay muslimiinta mar waxay ahayd yaasiq jinkis khan ninkii tatarka ahaa markuu dhulkii muslimiinta qabsaday meelo badan oo ka mida ayuu buug buu sameeyey shareecada islaamka midda nasaarada tan yahuudda iyo wax maskaxdiisa uu ka keenay buu isku daray buug buu ka dhigay buuggaasaa meel walba uu dhigi jiray laguna maamuli jiray yaasiqaas marka muslimiintu waa ka fakadeen waxay uga fakadeen sida alcalaama axmed shaakir uu leeyahay dadna lama barin oo dadkii muslimiinta yaasiqa waa iska aruuriyeen ilmahoodana maynan u dirsanin oo barta maynan dhihin waxay u arkeen nin gumaysta oo xoog badan wuxuu la yimid walidaalika maynan ku milmin muslimiintii markii uu iska tegey jinkis khan iyo tataartu ay ka baxeenna waa la tegey buuggoodii marka labaadna waa waktigan hadda aan joogno waayo ibtilada taalla gumaystihii waagii hore qabla isticmaarka ka hor dalalka muslimiinta maxaakim sharciya ka jiray waxa la yidhaha maxaakimtii sharciga waa la baabi'iyey waxaa lagu bedelay maxaakim qaanuuniya lagu bedelay kuliyaadaa laga furay dalalka muslimiinta kuliyat اlxuquuq la yidhaahdo ama kuliyatu yani alqaanuun ayaa la furay dadkii baa loo diray waa la bartay waa lagu shaqaystay maxkamadihii baa la dhigay balaayadiisu kaas marka waa kaanaa mahartay noqotay balaayadiisu mahartay noqotay marka tashriica caamka ah iyo inuu meesha sharcigii ku yaallo laakiin marmar laga leexdo waa kala duwan tahay ibnu cabbaas waqtigiisii waxa dhacayo khawaarijtuna ay ku gaalaysii jireen qudaadda waxay ahayd hal mar ama yani sharcigii baa lagu maamulaa laakiin marmaray jowr samaynayaan gaal waayay dhihi jireen markaasuu ibnu cabbaas wuxuu yidhi war maya kufriga aayaddanna waa deliisho jireen laysa alkufru aladii tadhabuuna ilayhi kaas ma aha marka fatwada ibnu cabbaas waaqiceeda waaqic aan ahayn haddii loo soo raro fahamki waa xumaana ibnu cabbaas waaqicaan oo kale maba arkin waayo waktigii mintii muslimiinta lagu ibtileeyey waxaan ayaa la yaqaanaa marka mas'aladaas iyada marka waa midda marka balaayadeedu ay badatay sidaas marka ay